mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waan ka xumahay inaan ka daba maro xildhibaan khadiijo iyo walaashay khadiijo gabdhahana xaqoodii in la siiyo waayo weliba xaqooda maanta oo maalintoodii laga dhigay in la siiyo waayo anigana dadka xaqaas taageersanaan ahay marka haddaanan taageersanayn uma istaagen marka waxaan rabaa inaan arrinta qoondada iyo ajandaha aan oga boodo arrin aan u arkaayo inay aada iyo aada u muhiimsan tahay gudoomiyahana waxaan rabaa inuu ii dulqaato sida loogu dulqaatay xildhibaanadii kale hore kale markaynu sharciga ansixinayni anigu dadkii soo jeediyaan ka mid ahaa inay jiraan arrimo muhim ah oo loo baahan yahay golahan iyo golayaal kale inay talo ka gaaraan horta sharcigeennii doorashada waa noo ansaxsan yahay waana dhammaystiran yahay taasaan rabaa horta inaan sheego waa noo ansaxsan yahay waana dhammaystiran yahay laakiin waxaa la gartay arrimo sharcigaas hadda marxaladda aan joogno aan lagu dabaqi karin oo siduu yahay aanan loogu fulin karin inay jiraan arrimahaasaa gaar loo soo saaray oo la yidhi talo gaaraha laga keeno labadii arrimihii markii hore waxaana la siiyey muuqaal ah in labadeenna gole ay ku heshiiyeen arrimahaasna laga dhigayo hindiso sharciyeedyo guddigiina loo diray inay wadatashi ballaaran sameeyaan maadaama arrimahaas ay yihiin arrimo ku kooban xilligan 2020 laakiin sharcigu uu yahay sharci soomaaliyeed oo ballaaran oo muddo dheer jiri doono horta waxaan shaki lahayn guddigii dadaal kastuu sameeyey la tashigii loo baahnaa iyo meelihii looga baahnaa ma soo qabanin gaar ahaan dowlad goboleedyada iyo axsaabta siyaasadeed iyo dadka kale ee siyaasadda danta kule ma soo qaban haddana guddigii laba golu ahaa labadii golaa loo gudbiyey waxaanu aragnay labadii goloo kala fakaday horta waxaa inagu soo haray warqaddan hadda uu naloo soo gudbiyey oo ku socoto golaha shacabka waxaa kaloo jirtay in naloo soo sheegay ama warqaddii lagu magacaabay guddiga ay ku qornayd in dhammaystirka xeerarkan in xeerarka guddigan uu samaynayo la marin doono qodobka saddexaad ee warqaddii magacaabista la marin doono hababka ay maraan xeerarka baarlamaanka uu soo saaro oo aan anigu u qaatay inay yihiin habkii sharciyeedyada ay mari lahaayeen waxaa ii muuqato intii sharcigan laga shaqaynayo kadib iyo guddigan uu shaqaynayo iyo weliba markuu warbixinta gudbiyey kadib isbeddello siyaasadeedoo xoog badanaya yimaada isbeddelladaa waxaa ka mid ah in aqalka sare uu yidhi fursad waa in la siiyaa wada tashigii looga baahnaa arrimaha doorashooyinka oo dowlad goboleedyada oo u matala uu ka hadlo sidoo kaleeto waxaa soo kordhay madaxweynuhu inuu u yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda inuu u yeeray dowlad goboleedyada madaxweyneyaalkooda inay ka tashadaan oo ay ka wada hadlaan oo laga shiro arrimaha doorashooyinka taa marka waxay ahayd fursad annaga inayna siiso annagana aan fursad bixinno in maadaama wadahadalba la bilaabay wadahadalkaas midho dhalkiisa la raadiyo sidii loo ballaarin lahaa cid ka maqan hadday jirto la doono laakiin aanu annaga xeerarkii la soo oragno oo aanu la durdoyno oo aanu go-aanno ka soo saarno runtii waxaan arkaa inay tahay wax hadhow golahan dhibaato u keenay golahani waa inuu noqdaa golaha ay wax ku soo dhammaadaan haddii dadkaas soomaaliyeed ay wada tashadaan oy talo soo gaaraan taladaas in golaha la keeno oo aanu uga doodno oo ay markaa go-aan noqoto
laakiin intaan hadda annaga go-aan la gaarin oo qaarkood laga yaabo inay dastuurka beddelkiisa ay dowr ku leeyihiin kadibna inta wadahadal siyaasadeed la galo wadahadalkaas siyaasad wax kale uu ka soo baxo haddee dad isqiimo tire iyo gole isqiimo tire ayaan aniga marka waxaan qabaa mudana guddoomiye iyo mudanayaal iyo marwooyin in fursad la siiyo sida aqalka sareba uu oga shaqeeyay in fursad la siiyo wadahadal natiijana ay u keento shaqadiisii in innaguna aanu bixinno fursad arrimaha looga wada hadlo si wada tashi ballaaran looga gaaro arrimaha qaar waynu ognahay suuragalna ma aha mana hirgeli karaan haddii dad aan innaga ahayn dadka golaheenaan ka baxsan aanay talo ku yeelan taladiina waa ku leeyihin waaba la siiyey waana ku leeyihin waana imaan doontaa marka aniga waxaan qabaa golo siyaasadeedaan nahay xilli kala guuraan ku jirnaa inaanan u ekaanin dad wax la boobayo oo wax la ordayo hadhowna inta go-aano la gaaro kuweena ka baxsan go-aanadeen daastabinka la isaga tuuro intay saa noqon lahayd aynu fursad siina ayaan qabaa meeshii aan hadalka ka bilaabay aan kusoo gabagabaynayaa taasoo ah dumarka anigu waxaan ka qabaa 30 boqolkii in looga badiyo waana mahadsantahay